Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu kusoo dhawaada Baghdad Online Academy iyo koorsada Negotiation Skills. Videogan waa video hordhac runtii aan ugu talagalnay inaynu ka siino information iyo tafaasiil ku saabsan koorsadan. Waxyaabaha aan uga hadli doono videogan waxaa ka mid ah koorsadan waxay tahay cidda loogu talagalay waxyaaba lagu baran doono insha Allah tabaaraka wa tacaala. Haddaba aan ku bilowno what is negotiation? Waa maxay negotiation ama wada hadal? Waa maxay? Negotiation is a dialogue between two or more people or parties intended to reach a beneficial outcome over one or more issues where a conflict exists with respect to at least one of these issues. Negotiationka sidiisa waxaa loola jeeda wada hadal u dhexeeya laba qofood amaba dad ka badan laba qofood amaba laba party hadafkeeduna ay tahay in la gaaro natiijo beneficial ah wax ku ool ah faa'iido leh ya natiijadaas oo laga gaarayo conflicti amaba iska hor imaad amaba isfaham daro amaba khilaaf u dhexeeyo labada party ama labada qof ama labada group ii sheeg muxuu ahaa si markaas ay u gaaraan natiijo wax ku ool ah. Marka negotiationku waa wada hadal. Wada hadalka wuxuu mari karaa ama dhex mari karaa laba qofood, wuxuu dhex mari karaa in ka badan laba qofood oo group ah, wuxuu dhex mari karaa laba party. Hadafkana waxa waa in la gaaro natiijo mira dhal ah. Natiijadaas oo ay tahay mid xal iyo solution u ah conflict because mar hadduu conflict yimaado iyo misunderstanding waxaa loo baahnaan doonaa negotiation. Hadduusan conflict iyo misunderstanding jirin negotiation lama baahna. So marka negotiationka normally waxaa loogu baahan yahay because waxaa jiro misunderstanding ya isfaham daro ayaa jirto, waxaa jiro conflict ya ayaa jiro. Si marka conflictigaas xal looga gaaro xal labada dhinac raalli ay ku yihiin ay ku qanacsan yihiin u arkaan beneficial waxaa muhiim ah in la sameeyo negotiation. Haddaba haddaan fahamna negotiation waxay tahay waa maxay muhiimadda negotiationka. Negotiationka runtii waa daily practice waa daily basis ayaan u isticmaalnaa negotiationka ama wada hadalka. Maanta nolosheena markaan eegno runtii kama marna isticmaalka wada hadalka amaba bargainingka amaba gorgortanka haddii ay tahay xiriirka caadiga ah ee aan la leenahay asxaabteena iyo familiga hadday tahay xiriirka midka businesska ah amaba haddaan ahay employee amaba as a business. Runtii negotiationka wuxuu ka mid yahay key success factorska ay ka qayb qaataa in ay ganacsiyada ay guulaystaan amaba wuxuu furo u yahay amaba ka mid yahay furayaasha u horseeda ganacsiyada inay horumar ay gaaraan. Maanta ma jiro ganacsi aan haddii uusan lahayn ganacsigaas amaba dadka ka shaqeeya dabcan markaan dhehno ganacsiga waxaan ka hadlaynaa managerska waxaan ka hadlaynaa dadka ganacsiga iska leh amaba dadka ganacsiga ama businesska u shaqeeya amaba shirkada u shaqeeyo haddii aysan lahayn xirfadda negotiationka dadka ka shaqeeya amaba mas-uulka ka ah runtii waxaa adkaanaysa inay gaaraan guulasha iyo yoolalka ay damacsan yihiin. Yani mathalan for example haddaad kasoo qaado contractiska dabcan business ma jiro maanta aan contracts aan galaynin contractiska amaba heshiisyada wuxuu la geli karaa shaqaalaha wuxuu la geli karaa clientska iyo customerska ku xiran iyo macaamiisha wuxuu la geli karaa muxuu ah supplierska supply gareeya iyo vendorska uu xiriirka la leeyahay amaba business partners wax loo yaqaano. Waxaasoo dhan iyo xiriiradaasoo dhan iyo contractyada oo dhan waxaa udub dhexaad u ah in natiijo miro dhal ah laga gaaro xirfadda negotiationka. So marka negotiationka in general marka waxaan dhehaynaa waa xirfad aan looga maarmin sinaba noloshana caadiga ah daily lifeka iyo businesska in particular. Inkastoo runtii negotiationka uu galayo meelo badan laakiin focuska korsadan wuxuu noqon doonaa areada businesska ayuu si gaar ah diiradda u saari doonaa inkastoo xirfado badan oo xirfadaha lagu baran doono koorsadan ay applicable ku yihiin so many fields and so many areas. Okay, koorsadan ayaa loogu talagalay who is this course for? Koorsadan runtiisaan hore usoo sheegnay waa koorso dad badan ay ka faa'iidi karaan. Professionalska ugu horeeyo hadday yihiin shaqaalo hadday yihiin maamulayaal levelada kala duwan ee maamulka hadduu yahay maamulka levelka hoose levelka dhexe ama levelka sare. Waxaa kaloo ka faa'iidi kara oo aad uga u baahan koorsadan dadka loo yaqaano business personska ee maamula amaba leh ganacsiyada entrepreneurska hal abuurka leh ee ganacsiyada furtay runtii marnaba kama maarmaan xirfadda ishak muxuu ahaa negotiation skillska. Sidoo kale waxaan ka maarmin xataa ordinary individuals حتى haddaysan ahayn professionals haddaba haddaysan ahayn business owners runtii because saan hore usoo sheegnay negotiationka waa xirfad maalinla ah
si maalinle ahna aan uga faa'iidaysan karno nolosheena guud ahaan. Haddaba maxaan ku baran doonaa koorsadan? Koorsadan cutubyadaan ku baran doono waxaa ka mid ah cutubka koowaad concept, importance and purpose of negotiation. Waa cutub hordhac ah oo aan ku baran doono concept ahaan wax negotiationka loola jeedo, muhiimadda uu leeyahay iyo sababta negotiation sideedaba loo sameeyo. Waxaan kaloo ku baran doonaa cutubka labaad faa'iidada ay leedahay inaan develop garayno xirfadda negotiationka. cutubka saddexaad waxaan ku baran doonaa the process of negotiation amaba processka loo maro negotiationka. cutubka afraad waxaan ku baran doonaa types of negotiation. Ilaa iyo 5 type ayaa jirto oo amaba 5 nooc oo kala duwan oo negotiationka uu leeyahay. 5ta nooc ayaan baran doonaa, mid walba iyo faa'iidadiisa iyo sida uu u duwan yahay noocyada kale. waxaan kaloo ku baran doonaa cutubka xiga main negotiation skills amaba xirfadaha muhiimka u ah negotiatorka amaba successful negotiator qofka noqonaya. xirfado aad u badan jirto oo runtii looga baahan yahay inuu kasbado uuna leeyahay. cutubka xiga waxaan ku baran doonaa waxa loo yaqaano negotiation techniques amaba farsamooyinka wadahadalka amaba negotiationka. Runtii negotiationka saan ku baran doono cashirada waa skill, waa knowledge, yacni ma aha wax la iska sameeyo. runtii that is why organizationada iyo shirkadaha iyo businessyada markii ay qof u dirsanayaan inuu noqdo negotiatorkooda, waxaa muhiim ah inay iska hubiyaan inuu leeyahay qofka xirfadii iyo aqoontii as a negotiator looga baahnaa. So marka waxaa jira farsamooyin kala duwan oo runtii aad iyo aad muhiim u ah lana isticmaalayo markii la sameynayo negotiationka iyo negotiation processka lagu jiro. kuwaasaan qaadaa dhigi doonaa insha allah cutubka ugu dambeeyana waxaan ku baran doonaa anshaxa negotiationka amaba negotiation ethics. Runtii negotiationka amaba negotiationka sidaan cashirada ku baran doono ma aha you know arrin hadafkeedu uu yahay in party amaba qof kale ku qiyaamo amaba qof kale ku hagardaamiyo ma aha. Runtii waa process loogu talagalay in labada qafood ama labada group ee u dhexeeya wada hadalka ay ku gaaraan natiijo wax ku ool ah ay labada dhinac ay ku you know ku qancaan dhaxalgalna noqoto. Si taa loo helo marka waxaa loo baahan yahay in dadka qaybta ka ah negotiationka inay leeyihiin anshax wanaagsan. anshaxyada kala duwan ayaan baran doonaa insha allah tabaaraka watacaala. Are you interested? Ma danaynaysaa koorsadan? Haddaad danaynayso fadlan nagala soo xiriir nambarka whatsappka ee Baghdad Online Academy ee kaaga muuqdo shaashada si tafaasiil dheeri ah oo ku saabsan qarashka koorsadan iyo sida cashirada loo qaadan doono iyo inta maalmood ay socon doonaan aad u hesho insha allah tabaaraka watacaala. Fadlan la wadaag asxaabtaada iyo qof walbo aad isleedahay wuu danaynayaa koorsadan si ay ayagana uga faa'iidaystaan. waad ku mahadsantahay dhegeysigaaga. intaan ku kulmi doono kalaasyada iyo cashirada koorsadan waxaa idinka tegaya fi amaan illah. wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.